asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub maalin wanaagsan ramadaan mubaarak alle subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu inaga aqbalo acmaasha wanaagsan waxaa lagu jiraa tobankii dambe ee ramadaan alle subxaanahu watacaala waxaan fadligiisa ku weydiisanaynaa in uuna haleeshiiyo habeenka leylatul qadriga sidoo kalena alle subxaanahu watacaala uu naga yeelo kuwa loogu dambi dhaafo fadliga bisha ramadaan loogana xoreeya naarta sidoo kale alle subxaanahu watacaala waxaan dambi dhaaf iyo janno u weydiinayaa waalidiintii isoo barbaariyey ee intaan ila ekeysiiyey iyo dhammaan waalidiinta muslimiinta ah alle subxaanahu watacaala waxaan uga baryayaa inuu ku casuumo oo uu ku marti qaado jannaatul firdows haddaba walaalaha quruxda badan aynu isxasuusino in aanu ku bilaawno salliga xabiibkeena muxamed allaahumma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid waxaan rabaa maanta in aan idinla wadaago qiso cajiib ah taasoo ku saabsan istikfaarta qoys noloshooda alle subxaanahu watacaala uu bedelay oo xaalad aan caadi ahayn ku jiray haddaba intii aan usii gudagalin qisadaas istikfaarta waxaan rabaa in aan idinla wadaago duco yar in aad ku dadaashaan oo akhrisataan tobankan ugu dambeeyo ee ramadaan inta lagu guda jiro maalmaha kooban ee ka dhiman ducadan ayaa wanaagsan qofka inuu ku celceliyo waana sidan ducada allaahumma innaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa facfu cannaa allaahumma innaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa facfu cannaa insha allah ducadaas ku celceli haddii aad shaqo hayso haddii aad iska nasanayso intii aad iska aamusnaan lahayd ducadaas ku celceli inuu alle subxaanahu watacaala noo dambi dhaafo ayaan rajeynaynaa insha allah qisadeena maanta haddii aan usoo noqdo qisadan waa qiso cajiib ah waxay ku dhacday familkan waxay ahaayeen dad iska faqiir ah oo nolosha aada iyo aada ugu culus tahay waxay ahaayeen famil ballaaran oo ka kooban gabdho iyo wiilal yacni dad waaweyn ay u badnaayeen ilmo yaryarna waa ku jireen familkan waxay ku jireen guri ijaar ah noloshana waxay uga adkeed si aad ah waxaa kaloo jirta familkan qof ka mid ah inuu shaqeyn jirin waxaa jiray gabdho waaweyn iyo wiilal waaweyn oo reerka dhaleen laakiin wax shaqeeya ma jirin guri ijaaray ku jireen nolosha dhan waxay ku noqotay cariiri gabdhaha wax la guursaday ma leh oo haddii gabdhaha qaar loo guursan lahaa laga yaabo in niman lacagla intay guursadaan familkii indhaha unu furmi lahaa laakiin wax gabadhoo reerka loo guursada ma leh wiilashii wax shaqeeya ma leh reerkii waxaa ku sugnaatay oo lasoo daristay xaalad aada iyo aada u adag waana famil badan oo 12 qof ka kooban hooyo aabana ku jiraan waxaa dhacday familkan in ay isla tashteen maalin oo ay meel fadhiisteen oo ay dhaheen qof walba adiga maxaa haysa yacni waxaa la waayay hal qof oo dhaho rajo shaqaan helayaa xataa yacni shaqaan hayaa ma aha laakiin shaqaan rajo kaleeya xitaa hal qof oo dhaho waa la waayay familkan waxay dhaheen aan ducaysano aan alle subxaanahu watacaala si jamac ah u barino in uu nagu arsaaqo shaqo wanaagsan si nolosheena isku bedasho waxaa dhacda guriga kirada ay degan yihiin in dhowr bil ay isku gaarto laakiin ninka ay ka kireysteen ayaa ahaa nin aada u wanaagsan oo duruuftooda u tixgelinaya hadday dadka qaar ahaan lahaayeen mar hore ayaa maalin walba guri laga saari lahaa laakiin gurigan ay degan yihiin ninka iskale ayaa nin wanaagsan ahaa oo duruuftooda u tixgelin jiray dhowr bil marmarka qaar haddii ay dhiibin waa uu ugu dulqaadan jireen familkan waxay go-aansadeen inay duceystaan inay alla baryaan qof walba waxaa layidhaha soo weyseysto 2 ragco sunnaa tukado qof walba uu soo weysaystay 2 ragco sunnaa la tukaday qur-aan ayay akhristeen familkii gabar ka mid ah ayaa waxay tiri hooyo iyo aabbo iyo walaalo waxaan maqlay maalin sheekh dhahayo istikfaarta aad ayay u wanaagsan tahay istikfaarta waxaa lagu helaa wax kasto wuxuuna aqriyay sheekhii aayadahan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله سبحانه وتعالى دنب داف ويديستا ودنب دافئه يرسل السماء عليكم مدرارا سمدها إذن كقصو دجيروب يعني استغفارت وحيالها لغوها لو حاكمد الروبكا ويمددكم بأموال وبنين وحاكلو لغوها لا أولاد يحورا gabadhi markii reerka intaas ku baraarujisay ayaa reerka dhan isbedelay yacni qof walba oo muslin ah waa uu garanayaa kalaamka Ilaahay hadii uu bartay laakiin dadku waxay u baahan yihiin baraarujin iyo xasuusin reerkii waa ayaa u bariyay waxay dhaheen maxaa meeshana laga jiro mar hore u fahmi weynay Alle subhanahu wa ta'ala ayaaba noo sheegay meeshii wax naga jiraan maxaan mar hore ogaan weynay المهم reerkii waxay go'aansadeen inay istighfaar bilaabaan qof walba oo reerka kamid ah maalintii 24 saac waxa la yiri waa in uu akhriyaa 2000 oo mar inuu dhahaa astaghfirullah wa atuubu ilayh asoo u niyeysanayo in noloshan aan ku jirno Alle subhanahu wa ta'ala noogu bedelo nolol ka qurux badan guri aan anaga leenahay inaan helno shaqana noo fududeeyo qof kasta oo familka kamid ah oo qaangaar ahaa ayaa arintaas la yiri adigana samee sidii ay reerkii arinta ku sameeyeen waxa ayna wadeen muddo hal bil ah 3 bari markii ay reerkii qof walba akhrinayay oo noloshooda step iyo wax yar yar isku bedelaysay bil markii ay reerku u idlaatay waxa u furmay albaabada risqiga bil markii reerkii ay joogeen waxa u furmay albaabada risqiga gabadhoodii weyneed ayaa waxa soo doonay nin magaalada laga yaqaano oo caan ah oo hantiila ah oo guriyo badan magaalada ku leh ayaa gabadhoodii weynaa soo doonay reerkii aad ay u farxeen waxa kale intaas dheer ninkii nin wanaagsan inuu ahaa reerkii aad ay u farxeen gabadhi markii la siiyayna waxa uu yiri aniga waxaan leeyahay guriyo badan oo magaalada ku yaalo hal guri ayaan siiyay waalidkaaga si aad ugu noolaataan maadaama aan ogahay in aadan jirin ama aadan lahayn guri aad adinka leedihiin oo kale aad ku jirtaan si aad dhibaatadaas uga baxdaan gurigaas ay idinku wareejiyeen albaabka koowaad ee furmay waa reerka gabdho waaweyn iyo wiilal waaweyn bay u joogeen in gabdhahoodii guur ay u heleen wanaagsan waxa kale in guurkiina ay ku sii heleen guri ugu horreyn kiradii waa ay ka baxeen subhanallah ninka wuxuu ahaa nin caan ah oo ganacsato ah oo guriyo intaas guriyo magaalada ku leh wuxuuna u ballan qaaday in walaalaheed dhammaan uu shaqo geyn doono gabadhii waa loo dhisay waa loo guuriyay reerkii noloshoodii tartiib ay isku bedeshay qofka bini'aadanka hadii uu marka baxo kirada wax yar hadii uu helo dabka ayuu isaga shubanaa reerkii waxa ugu badan ee culayska ka qaadmay wuxuu ahaa guri ay iyaga leeyihiin inay galeen gabadhoodiina maasha Allah nolol qurux badan ay u gashay waxay ku kaalmeyn kartaan ay ku kaalmeynayso sidoo kale gabadhooda ninka guursaday nin aad u wanaagsan ayuu ahaa waxa dhacday wiilashii iyo gabdhihii kale in uu shaqo u raadiyay mid walba uu shaqo geeyay waxa muddo kadib guursaday gabadhii wiil la dhashtay wiilkii gabadha la dhashtay markii uu guursaday ayaa waxa dhacday dhowr sano in ay xaaskiisii wax dhaleen haddana familkii iyo reerka ayaa isku imaaday waxayna dhaheen aan akhrino istighfaar aan u niyeysano wiilkeena inuu Alle subhanahu wa ta'ala awlaad ugu sakhiro sidii ay haddana familkii ku akhriyeen istighfaarta oo ay ku laazimeen oo Alle subhanahu wa ta'ala ugu baryeen wiilkooda inuu awlaad ku irsaaqo muddo kooban markii ay u akhrinayeen istighfaarta oo Alle subhanahu wa ta'ala u baryayeen ayaa waxa dhacday wiilkii xaaskiisa in ay uur yeelatay arinta kale maasha Allah ahayd oo wanaagsaneedna waxay ahayd in uu Alle subhanahu wa ta'ala ku arsaaqay laba mataana ah oo kala ah wiil iyo gabar sidaas ay reerkii noloshooda isku bedeshay reerkaas noloshooda idil Alle subhanahu wa ta'ala ayaa bedelay
waxa uuna ku bedelay fadliga istighfaarta. faa'iidada ay leedahayna Alle subxaanahu wa tacaala asaga ayaa ku sheegay oo inoogu bayaaniyey, inoogu cadeeyey quraankiisa. haddii la dhuuxo oo si fiican loo dhageysto oo la fahmana waa laga faa'iideysan karaa. sidaas ayuu reerkaas noloshooda isku bedeshay. xaalad waxay ku sugnaayeen adag oo aad iyo aad u adag. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa nolosha u furay, albaab ayaa u furmay, albaabkaasna waa uu usii bilaartay. haddaba walaalaha quruxda badan, waan filayaa qisadan inaad ku cibro qaadan doontaan. sababaha ama asbaabta qisooyinka loo soo sheegay ayaa waxay yihiin in ay noqdaan dhiirigelin iyo in ay noqdaan waano iyo wax sheegid iyo qofka in uu ku baraarugo. dadka waxaa badan kuwa qaflada ku jiro, si dadkii qaflada ay uga baxaan ay u baraarugaan ee Alle subxaanahu wa tacaala u xusaan. aynu ka faa'iideysano. waxaa lagu jiraa 10 ugu dambeeyay ee Ramadaan, in Alle subxaanahu wa tacaala noogu dambi dhaafo. aan badina istighfaarta, astaghfirullah wa atuubu ilayhi aan ku celcelino si Alle subxaanahu wa tacaala rajooyinkeena iyo hamigeena khayrka ah inoogu fududeeyo. waan filaa walaalaha quruxda badan muuqaalkan wax un inaad ka faa'iidi doontaan. walaalihiina kale u share gareey waxa ka faa'iideystaan. muuqaalkana like inoo saara si uu meel dheer u gaaro. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.